ديارة السماء هذا يقول بدين كان حتى أنتوا عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو وناكسن maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mar kale dastuurka. sidaan wada ognahay dastuurku waa waxa isku haya bulsho waana waxa tilmaama siday u xalliyaan mashaakilka dhexdooda ka jira. dastuurkan wuxuu ka yimiday ahdi qarameedkii lagu soo aasaasay Impagati waxa la ansixiyay 2012 marka waxaa la socotiin waxa ansixiyay ergo 825 ayaa ansixisay intii la soo dhaafo dhan runtii waa laga shaqeeyay laakiin shaqadii loo baahnaa laga ma qabanin. xilliga hadda loo soo jeestana waxay u socdaan si mugdi badan ku gadaamaya oo aan hufnayn oo maalinta ka dambaysa laga sii fogaanayo dariiqii saxda ah. marka ummad inay dastuur leedahay waa laga maarmaan mar walbana waxa lagu celceliyaa dastuurka in la dhameystiro ayaa loo baahan yahay si uu ku meel gaarka uga baxo. su'aashu laakiin waxa waaye goormuu dastuurku ku meel gaar ka baxaya? su'aasha muhiimka taas waa dastuurku wuxuu ku meel gaar ka baxayaa marka afti loo qaado oo shacabku u codayaan. marka ilaa laga gaarayo waxaa la sii wadaa shaqadiisii ayaa la sii wadaa. shaqadaasu marka waxay leedahay qaab raac oo tilmaamayo cutubka 15aad oo tilmaamayo sida wax loo bedelayo sida wax loo dhameystirayo dariiqa la marayo. waxaan rabaa marka inaan dib idinkugu laabto 2012 markii la ansixinayo dastuurkood diyaarsan. dastuurka waxaa ka shaqeynaya guddi madax bannaan iyo wasaarad oo wasaaradda dastuurka la yidhaah iyo guddi baarlamaanka ka shaqeynaya. markii la dhammaystiray waxaa lagu khasbanaaday in lala fadhiisto maamuladii jiray bulshada rayidka ah iyo cid kastoo loo arki kara inay ka qayb qaadan karto ra'yi ku beerista aqbalaadda. marka samaynta ama diyaarintuna waa shay dadku inay aqbalaanna waa shay kaloo muhiim ah. macnaha inaad dastuur samayso kaligaad macno samaysa waxaa macno sameeya in la aqbalo. in la aqbalo marka waxay ku timaadaa in lagala tashado dadka oo ra'yigooda ay ku beeriyaan. taasna waa waxa keenaya ixtiraamka dadku ay u haynayaan dastuurka. taas waay haddii aan lagala tashan ixtiraam uma hayn karaan. marka waxaan rabaa inaan aad u caddeeyo dastuurka wuxuu ku meel gaar ka baxayaa. arrintaas waa inay caddahay marka loo codeeyo oo ay u codeeyaan shacabku oo vote loo sameeyo ama mataqaanaa waxa la yidhaha afti loo sameeyo markaasuu ka baxay. inta ka sokaysa wuxuu ku jiraa يعني كمال قارو كجرا لكن إن لسيها جاجية لسيق قرحي على الروا. وحنا مركا إن تاريخان إدين شاقو حد ما أنت هدي لا يراد الدستور كوال لما يسترين. وحنا الآذى يا سؤال وايتن دور الشو أو مدحوين أو توس هذا اللي وحى وحلو دور تا برلمان كمان لحظة دور تصمع هذا وحنا جمع عن سومالي لان أو هذا اللي يقول جرا وأنا قلنا تبشدة إنه كسب باللعبتي مركي الدولة ده حبر برتي نلمس السجن نقلمت تشان دولة ده الصبح إلى دساي هدي له روا مركي مدحينا إلا الدورت هذا حل بانا دورته ولا إرادة وحلو جوري نظام كمدحينها سومال لان سأوق قرب قادنا يعني هذا حل بانا دورته سأوق قرب قادنا يعني سؤال واحد لابو hadda waxaan ku hawlanahay oo la daala dhacayna annaga Soomaaliland isu fahmi lahayn oo aan uga heshii lahayn sida aan noqon lahayn oo nala sii gashay meelo kale oo fogfog oo ogtihiin. hadda Puntland wax ka qabta oo tiri dastuurka sida u socdo konseen ka qabnaa. hadda iyagana bari banaanka istaagaan maxaa ku xalinaysa?
إلا أن دستورك وجدد أقوى إنه لقى له وحواي إن أو نقض مد ومد أول حياة وذا احترامان والسميهين كل رغمان تاسنا ماشوا كبحيسة سؤال وحالك أنا دستورك هدان لددجين وقت يا رماي ما مركز لددجيو رما وقتك وأمور يبوق يقيل أي هرايسو مس مركز لقى وضع تشضع ولقى هالشيء waxaan u maleynaa inay jawaabta saxda tahay marka laga wada hadlo oo laga heshiiyo waqtiga noo beeqaansan maayo maadaama aan nahay dad ka soo baxaya dagaalo sokeeya annaga intii hadda la soo socdo dhan dawladda waxaa lagu waday wada hadal isafgarad iyo ogol wax la yiraahdo runtii waa lagu soo caanamaalay meel fiican lagu soo gaaray dariiqa shal ah wax ku dhistay oo wanaagsan oo is-ogolka maxaa uga leexanaysaa marka okay waxaan soo aadaynaa dastuurkii dhamaystirkiisii dastuurka wuxuu tilmaamayaa hay-ado muhiim ah oo ka qayb qaadanaya dhamaystirka dastuurka ay ka mid tahay maxkamadda dastuuriga ma noo dhisan tahay maya ma dhisan sidaasoo kale guddiga adeega garsoorka nooma dhisna waxayna ka yihiin dhamaystirka dastuurka qayb weyn ayay ka yihiin ayagana lama hayo waxaan soo aadaynaa sida ay wax u socdaan laftigeeda habraaca waxaa ka dooday sida aa wada maqasheen ama aa wada ogtihiin 53 xildhibaan 52 xildhibaan waxay doodooda ku saleeyeen dastuurka habka loogu vowdayo inuu noqdo cod qarsoodi ah maalintii la ansixinayay habraaca waa la socotiin waxa dhacay dood ma dhicin dukumiinti lama wareejin mana yaqaanin xildhibaanada xataa waxa loo vowday waxa loo vowday ama loo codeeyay gacan taag mase waxa loo codeeyay sanduuq mase waxa loo codeeyay qofka in loo yeero saddexda option waa isku la qoraayeen taas marka waxay shaki gelinaysaa habka dhamaystirka dastuurka u socdo intaas waxa sii dheer dastuurka waxa dabiici ah dastuur mar walba wax cusub inay yimaadaan oo baarlamaanku ay ka doodaan oo wax lagu kordhiyo ama wax laga bixiyo laakiin marka waxa lagu kordhinayo iyo waxa laga bixinayo bataan waxay noqonaysaa dastuur bedel ma noqonayso dastuur la dhamaystirayo dastuur haddii la bedelayo marka saan hore sheegnay waxay u baahan tahay dadku inay ka wada fariistaan ay ku heshiiyaan dhahan dastuurka nama anfacay aan bedelo ayadana waa arrin oo aad iyo aad muhiim u ah intaas waxaa sii dheer mararka qaar doodda waxaa laga dhigaa qolo dastuur ansixinaysa iyo qolo diidaysa doodduna saas ma ah doodda waxaa waaye dastuurka in la hirgeliyo ama hirgelin yaan in la dhammaystiro waa la wada ogol yahay laakiin sida loo dhammaystiraya waxaa la rabaa inay ahaato si waafaqsan sida dastuurka uu tilmaamayo waa cutubka 15 ayaa tilmaamaya مثلا دستورك علذيه سمحا كميدا waxaa kamid ah raaliga ahaada campaign-ka madaxweynaha oo aan kala go'o lahayn madaxweynaha awoodiisa qodobka 9aad sheegay dastuur sameyn ugu ma jirto dastuurka waxa iska leh baarlamaanka guddiga madax banaan iyo guddiga korjoogteynta waxaan la soconaa hadda marxaladda hadda la joogo in la guddiyada culays lagu hayo la leeyahay ilaa dhamaystira soonka intuu sa dhamaanin ha dhamaado arrintaasna khalad waa guddiga in loo dhaafo shaqadooda oo baarlamaanka shaqadooda loo dhaafo taas ayaa dastuurku ku hagaagi karaa ku dhamaystirmi karaa waqtigana ku beeqaansami karaa cilladaha jira oo ka imaanaya dhinaca يعني حكومة وكسب سن دستورك وحيابها قار وحكح شلون أنا شكت هل مثال عن سواق هذا وحنقولنا هاي ذلك مدرر وزير أهل الدبيض نمله وزير أمن نمله ولقى ما اسود دي سمح هذا ذل حالة كجرة أو يعني aan ognahay amniga dhibaatada ka jirta oo aan ognahay diblomaasiyadda dhibaatada ka jirta inuu bila iska ahaado wasiir arrimo dibadeed la'aan wasiir amni la'aan saxmata
maxaa sakeeni kara muddada la waayay oo ku filan oo shaqadaas qaba kara weligaa ma isweydiiso su-aashaas dabcan ma raba inaan hoos sii galo waxyaabaha kalena waa ka badan yihiin waxaan rabnaa marka dastuurka arrintiisa in ay noqoto dastuur hay-adihii loogu talagalay ay ka shaqaynayaan madaxda kalena gaar uga istaagto madaxweynaha marka muxuu leeyahay madaxweynaha wuxuu leeyahay عهدك كمال جارك هراء دستور أسوأ حوت الماء مركز الأنصحية دستور كمدحينها صحيحة سيدا الشرع يكون غنا دستور كان وحوله شيء سيدا مدحينها صحيحة أساس يكون رجلها يعني مدحينها وحوله هاي حد يعيد واحد طبعا يسأجرت إنه والله فريسته لا الضوضة سوق قنعية تحصل لي مدحينها وحلا سعتين ومثال تنا أني مدحينا فرماجو أنا أقول بقى aan joogin oo safar ku jiro oo markaas aan maskaxdeeda waxa isku jiran waxa uga la hadlay arrinta Puntland madaxweynaha soo wacnay marka arrinta dhibka ka imaanay u sheegno waxa arrinta gala arrinta dani gala arrinta Puntland gala ma taqaana wixii u baahantiin ii sheeg waxaan ana laba usbuuc waxaan rabnaa dastuurka in dib loo dhigo hawshiis la joojiyo arrintaas caways annaga waxaan rabnaa inaan ku kaalmayno waajibaadkiisa asaga taas waxay tusinayaan marka يعني رول كي لوجا بهنا مدحينه ما قادنا وحو قادنا رول أن لو بهنا دستورك ولا أقولي هاي أكسر شقيني وحأصو فريسنا ما لا فربضان أصو فريسنا مرخاتي كتهين حدنا وأقولنا لكن وحاربنا إنه نقضى دستور سيدا أسقو أو تلماما يلو راعو وأن جيت كالغال ليحان وأن قفلو سمينين دستور كهذا ولا شخصي دي حتى كهذا الشيء وحلو لي قفا وحكشكت مايا دستورك صار نجمع دحية قصة أنا غير شكينا كن سجال بقول كنتر يتوضبدي يا سومالي إتوب جدًا حيل سلاسي فرينا أصدر وحاول لا وحن رأينا عرق فرنتي الله كأني نيك يمدو حدهن وأقول لها إنه يمد بقولك لكن هل شيء وشك أنا جا وحمل حبناني هنا وكهل لأنه ربنا مجران نيك نعيده في روح أنا أرجع أنا عرنت اسم الشيء كذا بقولك عيدين إيمانها وشك تعدين بقولك يا يمدي يمكن سومالي ده والله كل من نن قضية أي واحد هاي بقول أنا جا وحرمنا إن عمل حبنانا ومتقنا كم حبنانا الإثيوبية وده جوا عروضي مجالك لو قاعد ماشي لو جيدتك سومالي ده مركب وضع فريستان وحو يدي لبس سؤال مدو حدا هرت عليك محاتا قانون اسكو حكم بيسين إنا جار استاكتين كهر محاتا قانون اسكو حكم بيسين أرنت اللي بعضنا حولها ما أكتهين دستور كإثيوبيا محوك قبا يعني الدل كان كجوينا هذا جا كسر بوضح وده دستور كي هرت عليك هالليسا هذا دستور كإثيوبيا هذا دستور كإثيوبيا ما كل سميسان يا كل سميست لنا عانوا فيري وحولها نيكي قرصور كمسؤول كأي وزير كعدالة ده برنامج كان واجي دستور كله عدنا ما عدنا واحد ماشي حرج يناوت وحلا الشيء قال واحد محاتا غانينا كجابه محانا غانا وده أنا وحنا غانا في صومالي وحنا غانا في عربي وحنا غانا دين إسلامك هذيك محاتا غانا هذيك محاتا غانا في عمارة بسات غانا مركا أنا مرة من الدستور كان إنه كسر رماده دستور كعدة سماستة أسكله دستور ومداد إنه نقدر منه وحصلنا وحأسوا شيء إن سومالي كونتن إيو تضبط أو حلقة هلا وحنا وحكسر ميساني وحكم له دستور قف ملها كوحو ملها وملا أسكله شيء كذا وقتي على من أنا وشيخاء عن صحيحين دستورك وقت جسوا بهاي هاي وقت نوال هيستا وقت أنا قاعد على محوية لبكون إيه لبقى يتمن إلى هذا محل جشغينا يلو ويدينا دم بقاسي أسكله لبكون لبقى يتمن أنا حلك ينكو ورجي ماذا حين حسن محل جشغيوا محد يمدي أو عصب أو كينايا رمضان waxaan ognahay ramadaan sida badan bil cibaado waa in inta dadka la fasaxo isu soo laabtaan dhulka la soo dhigo si fiican looga doodo miyaan aqal gal ahayn waqtiga dhumaasa maxuu maxaa lagu qabar rabaa dastuurkan hadii la ansixiyo maxaa lagu qabar rabaa su'aal kale dalkan muddo wuxuu ku socdaa wax la yiraahdo madaxweyne
iyo ra'iisul wasaare gudoomiye baarlamaan goorma yimaadeen waxaan inteesa ka yimaadeen waxay ka yimaadeen kontomeeyadii lixdankii dowladda lagu soo dhisay dastuurkay ku qoreen dastuurkaas waxaa u codeeyey shacabkii soomaaliyeed afti dadweynaha la geliyey baarlamaan aan toos loo soo dooranin ma bedeli kariyaa structureka xaq ma u leeyahay ilaa waxaa la rabaa in laga fiiriyo dhinaca sharciga laftigiisa in la fiiriyaa la rabaa okay cilada taagan maxay tahay cilada oo rabo madaxweyne inuu xalliyo oo uu leeyahay madaxweyne ku-xigeenaan rabaa maxay tahay waxaa isqabsanaya soo maaha madaxweynaha iyo prime ministerka waa soo marta aniga laftigeyga laakiin xalkeeda muxuu yahay xalkeeda waxaa madaxweyne in awood loo siiyo inuu soo magacaabo prime ministerka hadday isqabtaan iraanihi wada shaqeynaya waa iska bax waa easy maxay ku kala duwan yihiin marka waxay ku kala duwan yihiin prime ministerka ama ra'iisul wasaaraha mar walba wuxuu leeyahay role madaxweyne ku-xigeenku role ma laha waa nin meel iska fadhiya wuxuu sugaa madaxweyne inuu dhinto ama safro hadduu safrana dee muxuu qabanaaba xafiiska xataa ma geli kareen ya xafiiska madaxweyne intuu yimaado shaqo ma qaban karo meeshiisu fadhinaya laakiin prime minister wuxuu leeyahay xafiis golihii wasiirada madaxu yahay shaqadii dowladda asagaa wada muxuu kaloo sameynaya wuxuu sameynayaa wuxuu caawinayaa madaxweynaha day to day oo madaxweynaha ku mashquuli lahay asagaa qaadanaya waxaan u gudbaynaa arrimaha doorashooyinka waxay ogtiin madaxweyne hadda jooga iyo aniga iyo asxaab kale mucaarada aan ahay meesha aan shirka jaad ku qaban jirnay madaxweyne farmaajo waxaan ku eedeyn jirnay wuxuu samaysanayaa sharci doorasho oo keligiis waan ogtiin wixii dhacay hadda dastuuraa la samaysanaa hadda oo ay ku sii jirto arrimihii doorashooyinka marka doorashooyin sideedaba waxay tahay inay ka heshiiyaan dadka candidateska ah dadkaasaa ka heshiiyey haddana jabtafoor waxyaabaha ku jira ka mid tahay intaas waxaa sii dheer dastuurka wuxuu leeyahay mabaadi' guud oo aan la bedeli karin mabaadi'da guud maxaa ka mid ah dalka inuu ku dhisan yahay nidaamka xisbiyada badan jabtafoor hadda maxaa lagu keenay 2 xisbi marka baarlamaanku ma wax ay rabaan iska samayn karaan mase wax xadidaa jira awoodooda wax xadidaa jira dabcan mabaadi'da uu ku dhisan yahay dalka lama bedeli karo mararka qaar waxaa laga murmaa 2 iyo badnaan yani xisbiye badan iyo 2 xisbi af soomaaligana waa kala duwan yihiin af carabigana waa kala duwan yihiin ingiriiskana waa kala duwan yihiin meel 2 ay ku badan tahay lama sheegin 2 waa 2 carabi waa 2 ama waa musanna ma taqaana ingiriiskana duwal iyo waxa waaye maxay tahay multiple shaqo isku malaha marka waxaasoo dhan waxay muujinayaan markaa fiiriso wax aan fiicnayn oo ah waxa aniga ii fiican dastuurka laga dhigo arrintaasna sax ma aha waxaan ka hadlayno ummad dastuurkeed waaye waxaan ka hadlayno ummad mustaqbalkeed waaye waxaan ka hadlayno ummad wada jirkeed waaye hadda qolaa maqan beri qolo kale inay baxdo berida mid kale ay baxdo maxaa xukumaysaa adi marka waa la ansixiyaba dheh tanaaba la ansixiya dheh intee ka fulinaysaa maalan presidential maxay ahaato system dalka amni ahaan waa u jeednaa siyaasadana u jeednaahe intee ka fulaysaa ilaan dastuurkan la barkaysamayo quraan maaha la barkamaayo dastuurkan waxaa la rabaa in lagu dhaqmo marka amni ahaanna waa u jeednaa siyaasad ahaanna waa u jeednaa intee ka dhaqan galaa dastuurka dastuur waa inuu naqdaa wax ummadduna u siman tahay ummaddana isku haynaaya midnimadeedana xoojinaya inuu naqdo waxaa la socotiin aniga iyo asxaab kale sanadaan kusoo noqonayna madaxweynaha oo isku dayayna inaan ka dhaadhicino fikirkaas lana madaxweynuhu dastuurka in lagu kala taga sax ma ah meesha ugu dambeysa waxa waaye in xataa aaraa'dii xildhibaanada iyo kuwa la yidhahdo dadweynaha laga soo aruuriyey aan loo ogoleen guddiyada inay geliyaan yacni macluumaadka aan hayno oo dhabta ah taas waaye taas marka waxay muujinayaan waxa laga shaqaynayo meesha ay marayaan marka waxa aan ka hadlayno
shalay anaga madaxweyne farmaajo marka aan mucaaradeen qabiil ma ahayn aragti siyaasadeed haddana qabiil ma weliba nasiib darro waxaa ah xukuumaddan hadda jirta yani xilliyada dambe waxaa looga shaqeynaya qabyaaladda si aan fiicnayn war dalkan qabiil waa u burburay waa lagu aaminay dowladdaa lagugu aaminay maxaa qabyaalad uga shaqeynaysaa qabiil meesha uu ku soo dhammaana waa naqaanaaye ma dadka ixtiraamtid oo naftaada ixtiraamtid oo wixii lagu dhibay ixtiraamtid oo ummadnimada ixtiraamtid shalay markaa mucaaradka aan madaxweyne farmaajo waxaan dhihi jirnay lacag ku bixiyaa wariyaasha dadka inay caayaan dadu ma taqaanaa lacag siiya maxaa la sameeyaa hadda shalay wixii aad diidaneed ma hadda adiga samaynaysaa see lagaaga qaadana maxaase uga baahan tahaba inaad dad caaydo hadda ya qabiil iyo dad in la caayo maxaa looga baahan yahay dalkan wuxuu u baahan yahay in la isku soo dhaweeyo qof kaa maqan inaad doonato waxaan ku soo gebagabaynaa nin nabadoona oo reer bay ah oo cabdigaruun maa dhijan mase garuunka laftigiisa ma aqaano yaa waxaa la yidhi laba qabiil oo daris miduu hogaaminaya isaga marka waxaa laga dilay dadaa laga dilay waana xilli abaara macnaha waxaan rabaa waxa fiican sida ay macno u sameynaa inaan sheego meesha dadka marka laga dilay tolkiisoo la tashada waxau dhahaa 2 neef oo geela isoo qabta geelisoo kaxaystay karfantiisoo qaatay dadkii u tagay dadka ay disheen karfantoodii iyo duugtooda waa kuwan nimankeena waa wakiibla yarora waxay isleeyihiin ninkii dagaal uu ku soo qaaday waa isfiiriyaan maxaa tiri wuxuu dhahay marka sheeko ma taqaan caamos wuxuu dhahay walaal jecel u qaata fulanimo u qaata waxa rabtiin u qaata waxaa la sheegaa dagaalkii maalinkaas oo istaagay ilaa haddana waa taagan yahay nabadii ku wada nooleen dadka macnaha waxaan u wadaa tanaasulka iyo dad isu jiididda aan macno samaynayso Soomaaliya meeshan waxa soo gaarsiiyay waa samayn karaa madaxweynaha waa samayn karaa inuu yiraahdo dastuurka waa la ansixiyay laakiin ma keena dastuur dhaqan kale ma noqonaa waxaan aaminsan inuu soo noqonayo sida hadda uu ku socdo dastuur ma ku noqonayo baarlamaanka hadda dooda socota hadda ugu batay 60 80 tagto waa wada ogtiin oo maleena maxaa la yiri maalin arkaba procedure-ka la beddelay waxa dood furana jirta marka dood maalintii koobaad ba hadii oo ay yimaadeen quorum lama baahan inta ku qoranta waxaas saacad kasta mar kasta oo baarlamaanku qabsoomayo waxa loo baahan yahay quorum meel ay ku qoranta 10 qof 20 qof quorum oo dastuur ka shaqeey karta ma jirto dastuurkuna wax ugu muhiimsan marka waxaan rabnaa inaan ugu yeerno dawladda inay ixtiraamaan dastuurka inay aqliga dadka Soomaalida ixtiraamaan inay wada jirkooda ixtiraamaan inay mas'uuliyadooda ixtiraamaan aad iyo aad u mahadsantiin